بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرka shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Cabdulle Habarwa abtigay wasiir ku-xigeenka deegaanka gudoomiyaha Dahabshiil Group Puntland Mudane Cali iyo Xasan Rashiid maareeyaha guud ee Somtel Puntland iyo deeqayarey oo aan iyadana si gaar ah u salaamayo iyo dhammaan marti sharaftan kale oo meesha isugu timid saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. saxaafadana iyadana si gaar ah u salaamaya runtii war badan ma jiro waqtigii baa kooban afurkii baa dhow war badan annaga ka ganacsata ahaana waa dhihi lahayn maadaama waxa hadda laga hadlaya uu yahay arrin ganacsi laakiin waqtigaan ogolaanayn kow horta waxaan u mahadcelinayaa gabadha yarta ah oo deeqayaraya oo shalay deeqa ahayd maantase deeqo Somtel noqotay oo ku biirtay shaqaalaha Somtel oo hal mar ah caalamkana qabsatay adduunkana horumar gaartay. waan u mahadcelinayaa deeqo waxaan la adeer soo dhawow hore u soco guulaysana. waxaan kaloo u mahadcelinayaa shirkadda Somtel iyo ama Dahabshiil Group hal mar ah gabadhan yarta ah oo ay abaalmarinta siiyeen oo la siiyey gaari oo la siiyey lacag oo la siiyey telefoon iPhone ah oo hal mar la dalacsiiyey oo shaqaalaha waaweyn oo Dahabshiil Group lagu daray 4 darajo isku mar ah. aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa Dahabshiil Group gudoomiyaha maareeyaha iyo gudoomiyaha guud Alxaaji Maxamed Saciid Ducaale iyo Cabdirashiid Dahabshiil dhammaantiinba waxaan leeyahay Dahabshiil Group waa mahadsantihiin tallaabada hal mar wada qaadeen oo isku markaa waa idin mahadcelinaynaa haddaanu nahay ganacsatada Soomaaliyeed Puntland. shirkaddan shirkad muhiim ah weeye Dahabshiil Group shirkad dalka Puntland magac iyo miisaan ku leh weeye shirkad aanu soo dhaweynayno weeye shirkad aanu la shaqaynayno weeye shirkad haddaanu ganacsatada kala nahay aanu soo dhaweynayno miisaan iyo magacna ku leh dalka Puntland weeye. marka xaajiga iyo wiilkiisa gudoomiyaha Cabdirashiid ah aad baan idin soo dhaweynaynaa aadna waa mahadsantihiin waana idin la shaqaynaynaa waxaana idin leenahay halkaa ka sii wada. gudoomiyaha iyo maareeyahana waxaan leenahay maareeyuhu waa cusub yahay adigana soo dhawow gudoomiye soo dhawow deeqooy adiguna hore u soco shirkadaha kale oo Puntlandna idinkana waxaan idin leenahay ku dayda Dahabshiil Group. kelmadda ugu dambaysa waxa weeye shirkadaha kale oo ganacsatada ah oo reer Puntland ama reer Soomaaliyeedna ku dayda Dahabshiil Group. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel